But you told me the amount of Bitcoin someone needs to become a billionaire. Do you remember that? And do you mind me saying what? Oh yeah, no, that's not. You told me if you had 50 Bitcoin, you'll become a billionaire. Do you still stand by that? I think it's 50 to 100. Okay, 50 to 100 to become a billionaire. What time frame? Once you hit the terminal, when everybody's denominating stocks and everything in Bitcoin, then that's when that would happen. I mean, that's the thing that I think a lot of people cannot get their head around. So you don't need a lot of Bitcoin. Like my son is stacking, right? He's just started, and he was saying to me, "Look, the price so high." I was like, "Connor, honestly, mate, you start now. I swear to you, you keep putting just 5-10% of your wage away, put it into Bitcoin. By the time you hit my age, you're going to be far wealthier than I am at this age." Sad videogan hordhac uga jeedaan ninkan Bristol ayaa wuxuu leeyahay haddaad haystid 50 ilaa 100 xabo inta u dhaxayso Bitcoin waxaa noqon kartaa billionaire. Million maaha waa billionaire inaad mustaqbalka noqon kartid. Waxa u baahan tahay kaliya inaad urursatid hadda 50 xabo ilaa 100 xabo oo Bitcoin inta u dhaxayso. Marka waxa la weydiiyay goorma ku qiyaasaysa xilligaas wuxuu leeyahay markii stock iyo suuqyada iyo dadka caadiga ay wax ku kala gadanayaan Bitcoin markaas ayaan qiyaasaya in qiimahaas aan sheegay 50 ka xabo ilaa 100 ka xabo billionaire ku noqon kartid waa xilligaas. Marka haddaan anay qiyaaso waa iska dhowr 10 sano meelaha hadii Ilaahay yiraahdo ama 10 sano wixii ka badan hadda u fiirsatay see Bitcoin ku soo bilaabatay 2009kii meeshii ka soo bilaabatay zero ayay ka soo bilaabatay iyo maanta intee marayso oo ah $43,000 iyo sida dadka u soo fahmayaan haddeertaan dad kaliya ma kambaniyaashi ayaa hadda bilaabay inay fahmaan kambaniyaal lacag aad u badan haysta dad taajiriin ayaa bilaabay hadda inay akhristaan oo fahmaan Bitcoin dawladda ayaa hadda bilaabay inay Bitcoin macnaheeda hadda qaarkood ku soo baraarugayaan oo fahmaya waxaas dhan hadda u fiirsataan iyo qaabka u socotay ilaa 12 sano Bitcoin ay soo socotay waxay ila tahay aniga si ila tahay dii Ilaahay yiraahdo haddaan wax kala dhicinin inay Bitcoin qiimahaas u ninka sheegay 50 ilaa 100 ka xabo billionaire ku noqon kartid inay gaari doonto 10 sano iyo wixii loo gaaro ama ka badan hadii Ilaahay yiraahdo. Marka 10 sano waqti badan ma ahan 2014 haddeertaan bay ahayd haddana waa ka 24 sano 2024 ayaa la marayaa. Marka si hadda halkan uga jeedaan intaan oo kale oo cryptocurrency oo suuqyada ku jira wax macno leh ay ku fadhiyaan malahan si aniga la tahay kulligood waxay rabaan intooda badan ujeedkooda waxa weeye inay lacag degdeg ah sameeyaan intay token samaystaan inay dadka ka iibiyaan tokenkaas oo wax macno leh u ku fadhiyin qaarkood waa scam qaarkood diiniyan xalaal uma ahan marka waxaas dhan hadda isku dartid cryptocurrency yaa lagu sheekeynin waxaa jirta cryptocurrency cusub oo hadda inta lacag gashatay degdeg lacag uga sameynaysid waxay u badan tahay lacagta sheegaysid inaad gashan rabtid inaad gashatid coinka cusub oo hadda soo galaya inaad lacagtaada dhan loos garaysid ayay u badan tahay 95% u badan tahay ama coin khaldan gadatid oo diiniyanba oo wanaagsanayn marka speculative wax laga noqonaysa waxaago dhan marka waxaan aniga tala ahaan nafsadeeda siiyaa inay Bitcoin clear tahay mid ugu muhiimsan oo hadda wax gashanaysid 100,000 hadda haysid 20,000 ka mid ah gasho sida hadda nimankan maca ay video ku sheegayaan 20,000 oo 100,000 boosteta kalena hayso hadda rabtid 20,000kaas ayaa mustaqbalka u baxsan doonta si hadda ay leeyihiin oo steeta kale waxa cunay inflation marka haddaan suuqan Bitcoin maalmahan dhaweytisaad arkayseen 42,000 ilaa 43,000 oo dollar ayaa xabadkii u dhaxaysa Bitcoin waxa cajiib ah dad badan oo grayscale ka mid tahay ayaa Bitcoin aad iyo aad u badan gadaya sell ku sameynaya buy maaha sell ku sameynaysa isla markiina waa la gadanaya oo BlackRock iyo dadka caadiga iyo kambaniyal ayaa isla markiiba qaadanaya marka inta la gadayo Bitcoin la sell gareynayo aad ay u badan tahay marka waxay ku tusinaysaa in baahi badan ay jirto oo coinkii oo suuq marka soo galaan la gadanayo isla markiiba qiimaha marka meel wuxuu u dhaxay waa iska stable oo kale hadda 42 43 41 ayuu u dhaxaya laakiin markii dadka sell-ka yaraado oo dadka buy-gu bato qiimo kor buu soo aadi doonaa dadkeena Soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan cryptocurrency kaleeto oo macno weyn ku fadhiyin yaan ku mashquulinin Bitcoin xooga saara waxaan kula talinayaa marka hore inaad barataan fahantaan macnaheeda Bitcoin waxay xalinayso kadib aad iibsataan marka iibsanaysaan aad iska taxadartaan meesha ka iibsanaysaan iyo qaabka u haysanaysaan labadaba fiidiyoyaal badan ayaan kaga hadlay meelaha ugu fiican oo laga gato iyo qaabka loo save gareysto labadaba
marka badanaa ma jecel inaan qiimaha iyo sida mustaqbalka noqon doono badanaa inaan ka hadlo laakiin dadkii ayaa xiiseynaya oo waxay rabaan soo weydiinayaan bitcoin qiimaheeda xagee aadi doontaa ama maxaa laga rajeynayaa qiimuhuna waa waxa qofka marka ugu horeysa soo jiita marka sababtaas ayaa keentay inaan marmar ka soo hadlo qiimaha iyo sida qiyaas iyo prediction ku yahay laakiin allahu aclam ilaa kaliya og wixii mustaqbalka dhici doona aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu